nin lagu dhaawacay oo la dardaray torrey weliba qaybta sare oo jirkiisa ayaa laga helay bartamaha mid ka mid ah wadooyinka ku yaalo xaafadda Askim ee degmada Indre Ostival, halkaasoo la sheegay in isaga oo qaawan dhaawacyo culus oo torrey looga durduray jirka qaybtiisa sarena qaba. Booliiska ayaa si degdeg ah goobta ku gaaray markii lagu soo wargeliyay ninkan wadada yaalo oo weliba torreyda si aan caadi ahayn loo durduray, waxaana lagu soo waramayaa in ay gaareen booliiska goobta, halkaasoo ninkii mindida la dardaray oo jirka qaybtiisa korona ay kaga yeeleen dhaawacyo aad u badan ay u qaadeen isbitaalka, halkaasoo hadda lagu dabiibayo. Taliyaha howlgallada booliiska deegaanada bari ee dalka Norway, Ronny Hellerud, ayaa ku waramayo in ninkan dhaawaca ah ay u qaadeen isbitaalka Olival, halkaasoo hadda lagu dabiibayo. Waxa uuna taliye Ronny intaa ku daray in dhaawaca ninkan ay ilaa iyo hadda caddayn karin ama aysan qeexi karin heerka uu gaarsiisan yahay. Wuxuuse qiray taliyuhu in dhaawac badan looga geystay jirka qaybtiisa kore oo torrey lagu durduray ninkan. Waxa ayna booliisku intaa ku darayaan in ay hadda wadaan baaritaano ku aadan cidda ka dambeysay falkan lagu dhaawacay ninkan hadda lagu dabiibayo isbitaalka. Waxa uuna boolisku sheegay inaysan jirin ilaa iyo hadda cid ay u soo qabteen dembigan iyo dhaawacan tacadiga ah ee lagula kacay ninkan, iyagoo sheegay in ay wadaan baaritaan xooggan oo ku saabsan sidii ay ku ogaan lahaayeen waxa dhacay, sida ay u dhaceen iyo cidda geysatay. Booliiska ayaa sheegay in dhacdadan aysan hadda wax khatara ku ahayn dadka ku nool deegaanada bari ee dalka Norway, kuwaasoo qaarkood ay soo wajahday cabsi iyo walwal ku saabsan ninkan mindida sida xun loo dardaray ee lasoo dhigay weliba isaga oo qaawan bartamaha mid ka mid ah wadooyinka deegaanada bari ee dalka Norway. Dhacdooyinka loo adeegsanayo torreyada ayaa kusii badanayo deegaano badan oo dalka Norway ah, waxa ayna hay-adaha ammaanka, booliiska iyo garsoorkuba wadaan dadaalo ku aadan sidii loo xakameyn lahaa arrimaha noocan ah. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.